madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa daahfuray barnaamijka Baxnaano oo taakuleyn dhaqaale lagu siinayo qoysaska danyarta ah iyadoo wajigiisa koobaad ay ka faa'iideysan doonaan 1.3 milyan oo kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku sugan. Bismillahirrahmanirrahiim. Horta runtii waxa maanta sharaf noo leh dowladda federaalka Soomaaliyeed aan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo maanta noo daahfuray barnaamijka maanta halkaan u joogno oo ah daahfurka barnaamijka Baxnaano. haddii aan wax yar ka taabto Baxnaano waa eray Soomaaliya waa ujeedka Baxnaano waxa weeye dadka saboolka ah oo nugul oo caruurta maamooyinka caruurta 5 sano ka yar leh oo dadka saboolka ah in ay dawladdu gaarto waa markii ugu horeysay nidaamkan uu soo maro nidaamka dawladdeena soo maro oo dawladdu dadkii ay iyada gacanteeda gaarayso waxa la rajayn doonaa in 200,000 oo guri oo Soomaaliya 21 district ah degmo ay ka faa'iideysan doonto oo wadanka corner to corner ilaa dad lagu qiyaasayo 1.3 milyan oo qof inay ka faa'iideysan doonto waan ogtahay hadda xaaladdan ku jirno oo cabuqa COVID-19 in dadkii la yiri guriyaha jooga waa garan kartaa marka dadka hadii guriyaha joogaan waxay qabanayaan male marka in dawladdu maanta ay dadkii ay wax la gaarayso dadkii saboolka ahaa ay lacag kaash ay u dirayso si ay mataqaana ay cunto ugu soo gataan waa wax dawladda aad iyo aad maarta qorshahan wuxuu ka mid yahay qorshaha dawladda ee la dagaalanka ay yareynta faqriga marka aad baan mataqaana maanta barnaamijkan ku soo daafurnay waana barnaamij wuxuu ahaa runtii maartay aad iyo aad muddo dheer wasaaradda ka soo shaqeynaysay waan rabaa inaan howlwadanadii wasaaradda ka soo shaqeeyay siyaasadda daryeelka bulshada oo aan ilaalinta bulshada oo aan saxinay September 2019 marka runtii waa wax badan oo laga soo shaqeynaa marka wixii baa isku yimid marka maanta maalin weyn bay wasaaradda u ahayd madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay xukuumadda dadaalka ay ku bixisay xaqiijinta ballanqaadkii ku aadanaa dib u soo nooleynta adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha iyo kor u qaadista fursadaha shaqo heerka nololeed iyo dakhliga dalka xaalad adag iyo dalkeena ku jira waa wada ognahay mar walba inaan ku celcelino oo aan soo helno fursad xaaladda caafimaad ee noo keentay cudurkan la yiraahdo COVID-19 ama caabuqa coronavirus loo yaqaano oo runtii xadiday dadku inay isu yimaadaan oo markay isu yimaadaan sidaan u kala fogaadaan waxay ahayd barnaamijkan bacdama uu yahay barnaamij barnaamijkii ugu horeeyay oo dadka saboolka aan ku gaarino oo aan ku caawinino in aan intaan ka weynino sababta noo suurtagelin weyda waxay tahay oo naxadiday oo runtii naxanibtay oo noo diiday inaan bulshada la wadaagno dad badan aan u yeerno si aan ugu macnayno barnaamijkan iyo marxaladii uu soo maray waxaa noo diiday isu dhawaanshaha keeni karto in la kala qaado cudurkan oo waxa kaliya looga hortagi karo inay tahay in la kala fogaado ama social distance waxa luqadda ajnabiga ah ama shay lagu yiraahdo in aan yareyno isu imaanshaha in la kala fogaado dadku inaysan istaaban maxaa yeelay saan hore u sheegnayba cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag ka daba tagiisu waa dib badan yahay waa runtii bilaaw wanaagsan wax walbana dee meel bay ka bilowdaan inaan nasiib u wada yeelanay idinkuna aad runtii ka shaqayseen inay hirgasho markii ugu horeysay ay dawladdu haba yaraataba ay gaarsiiso shacabkeeda dadkeeda saboolka ah waxay awoodo inay gaarsiiso Ramadaan ay hadda ay bilaabanayso mar dhow iyo xaaladan COVID-19 ee keentay oo dad badan laga yaabo qootulyoonkoodii iyo noloshoodii inay dhintay in dawladdu ay u gargaarto ay kaalmo gaarsiiso runtii waxaan oran karaa waa horumar aan gaarnay sidoo kale barnaamijkan waxaa qayb ka ah taakuleynta dhaqaale ee lagu xoojinayo nolosha dadka beeraleyda ah ee dalagooda u galaaftay ayixii ku habsaday qaar ka mid ah deegaanada ay ka soo go'aan dalagyada dalka dhamaadkii sanadkii 2019 iyadoona dawladdu ay sheegtay inay maalgelin dhaqaale u sameynayso beeraleyda si kor loogu qaado wax soo saarka dalka. Nafisa Cabdilaahi Qorne SBC magaalada Muqdisho.